arrinta maanta halkan taallaa waxa weeyaan dadkii suuqii waaheen ku barakacay ee hantidoodii ku gubatay maanta oo ay rabadaan gebageba tahay oo ay ciiddii dhowdahay intoodii badnayd wax soo gaadhay ma jiro wax liis ah oo la qoray oo hantidooda xildhibaan Saciid Cabdisamed Axmed ee Saciid Cure oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dhaqaalihii loo soo ururiyay dadkii hantidooda ku waayay dabkii suuqa waaheen baabi'iyay isla markaasina aan la gaarsiin. xildhibaan Saciid Cabdisamed Cure waxa uu sidoo kale sheegay in wasaarada kamid ah wasaaradaha Soomaaliland ay gacanta kula jiraan arrimaha dawladaha hoose iyo dhaqaalaha loo ururinayo shacabkii ay ku waxyeeloway suuqaasi waaheen. geesta kale waxa uu sheegay xildhibaan Saciid Cabdisamed Axmed Saciid Cure in aanay jirin khilaaf u dhaxeeya tagalo deegaan ahaaneed. haddaba xildhibaanka uu arrintaasi faahfaahin xaqiiqada jirtana taabtay waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arrintaasi. arrinta maanta halkan taallaa waxa weeyaan dadkii suuqii waaheen ku barakacay ee hantidoodii ku gubatay maanta oo ay rabadaan gebageba tahay oo ay ciiddii dhowdahay intoodii badnayd wax soo gaadhay ma jiro wax liis ah oo la qoray oo hantidooda loo qiimeeyeyna ma jiro aad iyo aad baan uga xumahay hal mar oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu wax faraguudkooda u qaybiyey oo isagana aynu uga mahad celinayna mooyaane waxba may soo gaadhin dadkii ay wax ka gubteen. waxaan waa wixii aan ka digayey ilaa bilowgii bal bilowgii ilaa maantaan ka digay golihii deegaanka ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadoodii baa loo dayn waayey. marka qofka shaqadiisa loo daayo ayay wax qabsoomaan. 18 abriil waxaan arkayay shir ka qabsoomay wasaaradda hawlaha guud oo uu wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta qodobo badan soo qaatay. horta halkan waxaan ka sheegayaa qodobka 110 kaliya maaha qodobka 109 110 111 ayaa sheegaya in dawladda hoose ay ka mid tahay xukuumadda. wuxuu iloobay wasiirku inuu shaqada dawladda hoose si saxa u sheegayo qodobka 23 anigu maanta waxaan aaminsanahay haddii dawladda hoose iyo golaheeda deegaanka shaqadan faraha looga qaadi lahaa inay dadkan maanta suuqa waaheen ilaa annagaa kala garanayna maanta dhammaantood habbi ahaan lahaayeen suuqa waaheenna maanta dhismihiisu socon lahaa. anigu aad iyo aad baan ula yaabanahay xukuumadda qaybo ka mid ah wasiirka awqaafta wuxuu ka mid ahaa guddoomiyihii guddida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay. waxaad moodaaba inuu shaqadii dawladda hoose uu ku hayo xafiiska wasaaradda awqaafta iyadoo ay shaqo badan u taalo. wasiirka hawlaha guud waxa uu yaallay inuu biriisho dhiso biriishada annagaaba iminka dhisna shaqo fara badan baa wasiirka u taallay inuu wasiirku taa qabsado hawlaha guud weeyaan. wasiirka awqaaftuna shaqo fara badan baa u taallay inuu shaqada qabsado. waar inay u daayaan waar ha u daayaan dawladda hoose municipality iyo golaha deegaanka ha u daayaan shaqadooda. waar annaga line ministerkaygu waa wasaaradda arrimaha gudaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ha soo maraan marka annaga wax naga doonayaan. aad iyo aad baan uga xumahay iyada oo maanta aynu xaaladada ku jirno oo suuqa waaheen aanay suurtagal ahayn maalinta aan ogaano inuu suuqa waaheen ka baxayo gacanta golihii deegaanka ee shacabkii lahaa doortay gacantooda ka baxay. suuqa waaheen 108 boqolkiiba marka la qaybiyo 85 buu shacabka Soomaaliland leeyahay boqolkiiba 15 waxa ku leh dawladda hoose boqolkiiba 15. xukuumadda shaqooyin fara badan baa u yaallay inay 15 ku aaminto dawladda hoose oo shaqadooda u dayso ayay ahayd. wixii kale ka soo galana ee xukuumadda ka soo galana annagu aanu qabanno. horta inan Hargeysa laga doortay oo 2 nuux ku dhashay oo ab cashuurta waalidkii bixinayay lagu dhisay suuqa waaheen inuu maanta yidhaahdo
suuqa waaheen golihiisii deegaankuu kala qaybsan yahay aad iyo aad baan uga xumahay suuqa waaheen iyo golihiisa deegaanka golaha deegaanka ee caasimadda jamhuuriyadda somalilan wuxuu ku midaysan yahay inay xukuumadda dhexe faraha uga qaado suuqa waaheen kolkaa waan ka xumahay inaan hargeysa laga doortay oo 2 nuux ku dhashay oo ku barbaaray oo codkii hargeysa haysta oo golaha deegaanka nasiib u helay maanta inuu fadhiyo inuu yiraahdo golaha deegaanka arinta waaheen uu ku kala qaybsay waxaan sheegayaa inaan arinta waaheen ku kala qaybsanayn shakhsiyan aniguna Siciid waxaan aaminsanahay waxa ay suuqa reer waaheen aaminsan yihiin oo ah in suuqooda qacanta loogu jiro waxaan anigu dadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ka codsanaya hadii qofkii doonaya suuqa waaheen taariikhdiisa inuu dhageysto Abwaan Maxamuud Cali Masbas ayaa si dhab ah uga waramaya taariikhda suuqa